السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada mar labaad maxaa irahdaa dadkii hore i yaqaanay aad iyo aad u mahadsantihiin haddaa videoga ila qaybsataan kuwa cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada magacaygu waa Qatra waxaan rabaa maanta inaan idinla qaybsado shaah la yiraahdo Lapacho tea ama powder arco caagi aan ka bixiyay bacweyna lagu soo riday marka bacda waa ujeedaan aladaasaan ku rid muddo badan oo iyaalo ugu yaraan sanad ah waxaan ka jaray bistaagi oo ku qornaa waxa la yiraahdaa powder arco waa 250 gram waxaan health foods ka online aan ka dalbaday maxaa yiraahdaa waxaan ka bixiyay adiga intaas 5 boon camal iyo inta lagu soo keenay adiga ugu yaraan adiga 6 boon 7 boon oo igu fadhisaa sanad uu iyaala maxaa yiraahdaa shaahanayta sababta marka hore u bilaabo waxay ahayd waxaan rabay wax antibiotic wax u dhigmo oo ah shaah antibiotic wax u dhigmo shaah ah waxaan helay marka powder arco sidii powder arco ku helay hadda arkaysan suu yaalo waxaa moodaa in qolof yar geed laga soo fiiqfiiqay waa run geedka qoloftiisa midda ku hoos jirta inta laga soo fiiq qolofta ayaa gudaha qolofta gudaheeda ayaa laga soo fiiqfiiqay waxa laga keenay maxaa yiraahdaa Brazil caadi ahaan dadka oo native ka ah oo u dhashay wadanka oo asal ahaan wadanka u dhashay ayaa isticmaali jiray marka waxyaalaha loo isticmaalo waxa kamid ah antibioticada wax u dhigmo oo jirka gudihiisa ah lacala ka soo qaad aniga waxaan ka isticmaalayay madax xanuun badan ay ahayn jiray madax xanuun iyo marka sam ahaan normalka ah qoorta ay xanuun jirtay marka waxyaabo kala duwan iyo marmarka qaarkood isbitaalan ka shaqeeyaa neersaan ahay waxa laga yaabaa inaan hergab yar iyo caloosho marmar ay xanuuntii aan ka soo qaado marka ma jecli inaan qaato wax alaal wixii oo kaniiniyaasha iyo warshadaha lagu sameeyo haddii aan heli karo wax dabiici ah ee u dhigmo soo raadinta aan raadina waa dhowr sano ka hor ayaa waxaan la kulmay powder arco markaan si aan usii dabagalay powder arco waxaa ogaaday inuu antibioticadu kasii xoog badan yahay wax damage oo korkaada u gaarsiinayana aysan jirin waana shaah maxaa irahdaa kaliya inuu yahay mataqaanaa antibiotic iyo coldka iyo infectionka uu korka ka saaro uu dhiiga ka nadiifiyo kaliya inuusan ahayn ee uu leeyahay xataa funguska iyo cambaarta iyo caloosha ulcerka dadka oga dhacay iyo xanuun baabiye xataa uu yahay oo xanuunkii madax xanuunka uu si dhaqsi iga qaado mararka qaarkood xataa aan infection kala qabin waxaa ogaaday in mataqaanaa ay ku jiraan mineraalo badan oo korka u baahan yahay oo kamid ah iron oo kaleeto oo dadka oo dhiig la'aanta dhiig ku yar yahay markaas hadday qaataan u fiican tahay inuu vitamino kale oo iodine iyo manganese iyo maraba waxyaabaha caafimaadka inaa idiin sii dabagalo calashaan wax allaal wixii korkaada nadiifinayo oo infection ka saarayo calashaan jirkaada difaaciisa ayay caawinayaan korkaadana wuxuu helayaa jines uu arinta wax kale oo ku jiro uu ku nadiifiyo marka maxaa igu dhacay markaan shaahi aan sameeyo waa idin tusin doonaa insha Allah sida shaah loo sameeyo maxaa igu dhacay laba bari markaan qaatay ayaan hadda inaan waxaan bilaabay qandho yar ay qabato markaan si dabagal waxaa ogaaday calashaan ka soo qaat hadii qof ku dhaco hergab haduu hergab kugu dhaco kaleeto laba bari saddex bari markuu ku hayo marka daba waa aragta xabagaa soo tufaysaa xabagtaas waxaa weeye seelasha sanbabka ku jiray oo infectionka uu galay oo dhintay iyo kuwii difaaca oo isla wada dhinteen oo soo tufaysaa marka powder arco qaadatid markuu caloosha nadiifiyo wixii uu tufi lahaa waxay ka baxayaan dhinaca kale waa musqusha ku xajoonaysa Soomaa xanuunka saasa marka waxay labada bari aqalada yar qabatay korkaada ay is nadiifinayo marka ha ka cabsan hadii lacala aad dareento alla kan shaaha waa ku sii xanuunsada hadii laga yaabo ina qof walba isku bacteria kuma jirto qof way ku yartahay qof way ku badan tahay qof muddo badan ay haysay oo antibioticadana way fiican tahay laakiin antibioticada ma kala taqaano bacteriada jirka u fiican iyo bacteriada jirka u xun oo jirada keenaysa kulli way wada dilaysaa marka antibiotic hadda ka maareyn kartid oo waxyaabo kale oo natural ama powder arco ahaado ama wax kale aad daahiri kartid waxaan ku waan lahaa inaa isticmaashid powder arco waa ku xoog badan yahay kaliya ma ahan antibiotic side ku sheeg waa anti pain xanuunku baabi'iya infectionka oo inflammatory oo korka ku jira like sida mataqaana arthritis xanuunka markuu keenay calashaan lafihii meesha isku rugayeen ayaa inflammation ku jira waay dadka badanaa waxaa la siiyaa diclofenac waxyaabo anti inflammatory kaniiniyaal ay qaataan laakiin haddaa powder arco heli kartid waxaan ku waala powder arco tea cab marka hal wax ayaa waxaan rabaa calashaan wax kasta waxay leeyihiin wax ka soo horjeeda
powder arka caloosha waxay abseed ka dhigaa laakiin wax dhiba maaha wax shuban kugu ridaayo laakiin waxaa moodaa in calooshaada sidii ka fududahay sidii hore ay u bixi jirtay waxa kale oo ku xiga waxa waaye wuxuu leeyahay xoogaa dhiig u jilciya dadka dhiig u jilciya calashan wuxuu ka dhowrayaa xinjiraha qofkii dhiiga mataqaan dhibaatooyinka haystaan ama dhiig bax qaba ama daawooyinka kaniiniyaasha qaato dhiiga jilciya kaleeto waxaan ku dhihi lahaa intaadan qaadanin dhakhtarkaada la tasho haddii qof dumar haweeney ah oo mataqaanaa ay uur leedahoo kaleeto waxaa fiican dhakhtarkeeda inay la tashato marka wax oo waana caafimaad ma rabo inaan idin siiyo idinkoo dhakhtarkiin la tashanin laakiin aniga ahaan waxaa idin rabaa inaan idin sheego sida uu ii anfacay iyo sida aan mar nolol awalkaba iskuma fiicnin antibiyootikada laakiin dib dambe dhakhtar uma istaagin oo antibiyootik ma weydiisanin marka waxaan rabaa inaan idinla qaybsado sida loo sameyn lahaa marka qiyaas ahaan sida loo sameeyo waxaa weeye 1 liitar oo biyo ah ayaa waxaa qaadayo ugu yaraan 3 qaado ilaa ay waxay yiraahdaan 6 qaado laakiin 6 qaado haddaa cusubtaa way kugu badan tahay 2 qaado ka bilow liitarkii hadda nus liitar aad sameynaysid oo 2 bakeeri oo kaleeto 2 bakeeri barna 1 qaado ku darso waxay ku xiran tahay adiga waxaa u baahan tahay iyo hadda soo dareemaysa laakiin hal mar haddaa wada qaadato waxaa laga yaabaa inaa mataqaana xoogaa dhib kugu noqoto korkaada isla marka uu mataqaana ku adag tahay marka waxaan ku shubanaa hadda bakeeri biyo ah waa adiga 250 miligram oo biyo ah marka qaado igu filan caadi ahaan waxaa la yiraahdaa dadka dee wadanka u dhashay oo laga bartay shaahaneed waxay yiraahdaan powder arko waxay ku darsadaan wax shaahi aan hore idin tusay yerba mate marka intaan waa 1 qaado xoogaa yar waxaa u jeedaa jilif uu leeyahay oo qaadada ma qaadayso soo qaadadii intaan ka soo dhigay intaan ku shubanayaa waxay ku darsadaan wax la yiraahdo shaahi aan hore iskula soo aragnay oo yerba mate waxay yiraahdaan yerba mate iyo powder arko uu isku fiican yahay haddaa si u sii fiiriso bacdama yerba mate uu nuxur badan yahay oo mineral badan uu ku jiro maxaa yiraahdaa powder arkana asagan uu yahay antiviral antibiotic uu yahay oo waliba asagan iron ay ku soo jirto haday isku darsamaan wax wanaag muugiye wax xumaani kama imaan karto marka waa garan karaa inay isku dhex dareen علشان waxaa ogaataa wax allaala wixii korkaada nacfi gelinayo difaaca jirkaada ay xoojinayaan difaaca jirkaada markuu xoogsamo hadii lacala ka soo qaad ama alla kulanto jirkaada uu aad bacteria ama infection aad la kulanto jirkaada adigoon ogeyn ayuu iska celinaa marka ha samee mar walba raashinkaada toosi wax korkaada anfacayana qaado minas hadaa maanta sokor iyo bur aa cunayso wax allaala waxa qaad wax weyn kuuma tarayaan soo u baahan tahay ina cuntadaada ay cagaar u badnaato ma taqaano especially marka sii jirantahay gaar ahaan marka sii jirantahay ama xanuunsan tahay soo xina iska gaabiye inaad qaadato cuntadaada ay cagaar u badan tahay sokor oo dhan aa meesha ka bixiso hadaa caano iyo waxa iska dhaafi kartaa iska dhaafto yogurt waxba dhibo ma lahan maxaa yiraahdaa cuntada dabiiciga ah cunto ee ku xiranta marka powder arko aan u soo noqono biyaha igu yaraa wax yar oo biyo ku darsaday waxay yiraahdaan calashaan biyo kulul hadaa ku darto waxa u baahan tahay inuu 20 daqiiqo meel yaalo ama dabka aa u gaabiso ilaa 10 daqiiqo oo xoogaa yar oo meesha biyaha wax yar ay karkaraan si biyaha ay ogala baxaan wixii nacfi ku jiray ma taqaana caleenti ee shaahi ku jiray ay ogala baxaan marka wax yar ayaan meesha ku dhaafaya ilaa 5 daqiiqo aan ku dhaafaa waa daboolaya 20 daqiiqo hadana meeshii oo laaya ka bacda shaaha hadana isticmaali doonaa insha Allah shaahidi waa loo karkaray wax yar ayaa ku dhaafay 20 daqiiqo maxaa yiraahdaa waa kana sida say u yaala waa ka diyaar weeye ilaa 20 daqiiqo meesha yaala marka waxaan sameeynaa bakeeriya ku shooreynaa marka wax yar aan ku shubaa inta hada kaamirada aan ku soo dhaweeyay ila aragtaan wixii qash gurufka ahaa dhan hoos u dagay shaahi marka wuxuu isku noqday gaduud yar iyo cagaar yar uu noqday waxba laguma daraayo sokor kuma daraysid malab kuma daraysid qaraar yar uu leeyahay laakiin qaraarkaasayt waxa waa la qabsanaysaa waliba markaad
infection uu ku hayo kaleeto ina cabto waxa u baahan tahay adiga 4 bakeeri maalinta hadaa cabtid liitarkii 2 qaado 3 qaado ku shubi kartaa up to ilaa iyo 4 qaado ku shubi kartaa laakiin maxaa iraahdaa bakeeri maalintii 4 bakeeri subaxii duhurkii iyo intaadan sariirta aadin maxaa iraahdaa haday wax kaaga soo haraan ka soo qaad faranjeerka gashan kartaa inta dhala yar ku xirato ama wax yar ku xirata faranjeerka gashan kartaa maalinta ku xigto sidiisu fresh u ahaanaya oo wax iska bedelay ma lahan maxaa iraahdaa shaahani turun ahaantii ma u baahnid inaad markasta aad cabtid markaad jiran tahay iyo marka caafimaadkaada xoogaa yar u liito waa fiican tahay ama marmarka qaarkood adiga dhowrkii bilood mar ma ahanay iska daba cabir waaye aadna u xoog badan yahay korkaadana ma fiicna inuu la qabsado maantana in la caawiyo mararka qaarkood inuu asaga haddaad marba cunto fiican aad cunayso ama marba aad ka fikirayso biyo badan aad cabto cagaar badan aad cunto fruit aad cunto oo aadan bariiska cad iyo burkii wixii aan ka soo wada hadalna aadan korkaada oo raashinkaada uusan u badnayn horta sida u jirto way adag tahay laakiin bani aadana marmarka qaarkood waxba naga saaid caleynaayo waxa way waa isticmaali kartaa iyo markaad xanuunsan tahay ka soo qaad caloosha laga hayo madaxa xanuun baabi'iye ko wuxuu isku darsaday waa antibiotic waa xanuun baabi'iye waa hadad ka taqaana funguska qabo waxa la waa sidii maqaarka kaleeto cambaarto ka soo baxdo kaadida oo mataqaana infection ka galo dadka kaada haysa marmar infection ka gala arthritis ka xanuunkiisa haddii xataa rabto haddii cambaar korka kaaga taalo kale inta cabto korkana waa marin kartaa biyihii shaahiyo sidiisa ah laakiin ma aha shaah aad rabto inaad maalin kasta aad cunto cabto ma ahan waayo wuu xoog badan yahay waa antibiotica kan ugu xoog badan oo wax alla la herb wax yiraahdo ugu xoog badan weeyo korkaadana hal mar ka nadiifinaya waxa soo dhan marka waa kaas shaahini haddaan soo dhaweeyo waa kaas wax uu dhib leeyahay gurufkii oo hoos ku har intii ay hartana hadhowto cabi karaa ama hadda qof ii yimaadana waan la qaybsan karaa haddii wax ka soo haraan ilaa iyo maanta faranjeerkan gashana bari subaxi ayaa mataqaana iska cabi karaa marka sheekadan casharkeena maanta intaas uu ku egyahay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waxaan ku faraxsanahay idinla qaybsaday lapachoti waxaa lagu gadaa bad online ayaa lagu gadaa oo internetka laga dalbada 250 oo garan ayaa 5 pound mase 6 pound joogtaa iyo inta lagu keenayo cirka haday u boodo 10 pound ma dhaafto haddaa ka hesho healthy foods kan waa fiican yahay haddaa yarba maanta ku darsatana waa kasii xoog badan yahay oo dadka dhaqankooda u lahaa waxay leeyihiin haddaa idin soo sheegay yarba maanta ku darsanaa xataa waxa la shaaha waxyaabo ku jira ayuu active ka dhigaya ayuu korka isla markii easy u noqonaa inuu qaato والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراليا إنك فائدة استينان شعلها حدا كهشين كومنتي غوصي وصوقرة حدا وحك اسكا قرتين آدي يوم ما سنتين إن شاء الله يمركحيها مع السلامة ورالهي